kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka oo idinkaga imaanaya HBTV. barnaamijka ayaa waxaa ku soo qaadanaya ciidamada Israa'iil oo weerar ku qaaday xerada qaxootiga Falastiiniyiinta ee Janiin iyo taliyihii ciidamada Israa'iil oo iscasilay sabab la xiriira guuldarooyinka Israa'iil ee dagaalkii ay la gashay Xamaas. waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka. ugu yaraan 8 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay 35 kalena way ku dhaawacmeen weerar ay ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen xerada qaxootiga Janiin oo ku taala daanta galbeed. gawaarida ciidamada Israa'iil ayaa la arkayay ayagoo duulaan ku ah xerada qaxootiga kadib iyagoo ku qaaday weerar dhinaca cirka ah mid baabuurta gaashaaman iyo sidoo kale waxaa weerarka ka qayb qaatay kooxda lagu magacaabo Shin Bet oo dhinaca amniga u xilsaaran Israa'iil. sidoo kale dadka Yahuudda ah ayaa sidoo kale waxa ay weeraro dheeraad ku qaadeen Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed ee dhulka la haysto. goobjoogayaal ayaa sheegay in 10 qof ay markaasi oo Yahuud ah ay dab qabadsiiyeen guryo iyo goobo ganacsi oo Falastiiniyiinta ay ku lahaayeen magaalooyinka Fandaq iyo Jinsafuud oo dhanka bari kaga beegan magaalada Qalqaliya. bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in 12 qof ay halkaasi ku dhaawacmeen. 15 bilood ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalka u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil ayaa dadka deegaanka waxa ay xoojiyeen ololaha rabshadaha ah ayagoo markaasi duulaan ku ah dadka Falastiiniyiinta iyadoo dadka Yahuudana ay markaasi kor ka ilaalinayeen ciidamada Israa'iil. haddaba daawade maxaad ka taqaan xerada qaxootiga ee Janiin? bal in yar aynu dulmar ku samayno. weerarkii dhimashada badnaa ee Israa'iil ay ku qaaday Janiin iyo xerada ay dadka ku badan yihiin ee daanta galbeed ee la haysto ayaan bal eegaynaa asal ahaan xeradaasi iyo qaabkii ay ku samaysantay. wixii ka dambeeyay kacdoonkii Falastiiniyiinta ee loo yaqaanay Nakba isirsifaynta qowmiyadeed ee Falastiiniyiinta intii lagu jiray gaar ahaan abuuristii Israa'iil sanadii 1948 qaar ka mid ah qaxootiga ayaa degay waxaana xilligaasi loo bixiyay ama loo yaqaanay xerada qaxootiga ee Janiin halkaasi oo dadka degay lagu qiyaasay ilaa 14,000 oo qof. xerada asalkeeda waxaa lagu burburiyay duufaan baraf ah. xerada hadda jirta waxaa la aasaasay sanadii 1953 intii lagu guda jiray kacdoonkii ugu horeeyay ee 1987 ilaa 1993. askarta Israa'iil waxa ay si joogto ah u weerareen xerada ayagoo raadinaya Falastiiniyiin hubeysan. in ka badan 400 oo guri oo Falastiiniyiin ayaa la burburiyay. in ka badan rubac ka mid ah dadka xerada ku noolaa ayaa barakacay. boqolaal guri oo kalena waxaa soo gaaray burbur xoogan. in ka badan rubac ka mid ah dadkii xerada ku noolaa ayaa barakacay. sanadkii 2022 wariyihii Al Jazeera Shireen Abu Akleh ayaa toogasho lagu dilay iyadoo mid ka mid ah askarta Israa'iil uu toogtay gabadhaasi xilli ay markaasi ku sugneen Janiin isla markaana ay ka warbixinaysay weerar ay Israa'iil ku qaaday deegaankaasi. tani markii dagaalkii Israa'iil ee Gaza uu bilowday bishii Oktoobar sanadkii 2023 ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen weeraro dhimasho iyo dhaawac leh oo si joogto ah ay ugu qaadayeen xerada Janiin. dhinaca kale taliyihii ciidamada Israa'iil ayaa iscasilay isagoo iscasilaadiisa u sababeeyay weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ku qaaday Israa'iil iyo guuldaradii ku dhacday Israa'iil. Major General Hersi Halevi ayaa ka tegay shaqada waxa uu ku tilmaamay mas'uuliyadda guuldarada militariga intii lagu guda jiray weerarkii ay Xamaas hogaaminaysay ee koonfurta Israa'iil ka dhacay sanadkii hore. iscasilaada taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa dhaqangeli doonta 6 bisha Maarso. iscasilaada oo ay sii daayeen ciidamada ayaa taliyaha militariga ku sheegay inuu u baxayo sababo la xiriira qirashada mas'uuliyad darrada guuldaradii dhacday 7 bishii Oktoobar markii uu bilowday dagaalka. dhinaca kale dad badan oo Israa'iiliyiin ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu qaadan waayay mas'uuliyadda shakhsiga ah ee ku aadan fashilka siyaasadeed iyo midka military ee dhacay 7 Oktoobar markii Xamaas ay weerartay Israa'iil. dhinaca kale heshiiska xabajoojinta ee u dhaxeeya Israa'iil iyo ururka Xamaas ayaa socda maalintii 3aad iyadoo gawaari sida gargaar bini'aadanimo
oo baahi weyn ay u qabeen dadka falastiiniyiintana uu kusii qulqulayo Gaza halkaas oo ay ka taagan tahay masiibo bini'aadanimo. magaalada ayaa burbur xoog leh uu soo gaaray waxayna tahay goob markaasi cabsi ay ka muuqato. waa hagaag daawadayaal, intaasi ayaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada caalamka oo idinkaga imaanayay HB TV.